waxaa runtii farxad ah maanta inaan halkan ku weheliyo wasiirka qorshaynta qaranka oo aan ku saxeexno heshiis aan kula gelayno hay'adda USAID oo u dhigma lacag ka badan 86 milyan ama ku dhawaad 96 milyan oo loogu talagalay ama ah kaalmo loo fidiyay lana siinayo dadka Soomaaliyeed si wax looga taro arrimaha horumarinta dhismaha adkeysiga bulshada iyo soo kabashada Soomaaliya guud ahaan sharaf weyn bay runtii noo tahay waxa aan uga mahad celinaynaa dowladda Mareykanka iyo gaar ahaan hay'adda USAID oo mar walba dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed la soo garab taagneed kaalmo muhiim ah dhanka soo ay tahay hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta arrimaha bulshada iyo guud ahaanba dhanka kobcinta dhaqaalaha dalka tanna waxay markhaati ka tahay in commitment-kaas iyo ka go'naanshahaas dowladda iyo dadka Mareykanku ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin inay tahay mid runtii adag oo ay ku saacidayaan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay soo kabtaan culaysyadii soo maray sanadihii la soo dhaafay waa bogaadinaynaa dadka cashuurta bixiyey ee Mareykanka ah ee soo mariyay hay'adooda lacagta waxaa kaloo rajaynayaa dadka Soomaaliyeedna inay cashuurta bixiyaan si aynu uga baxno inaynu ku tiirsanaano cashuur bixiyayaal dad kale haddana runtii waan bogaadinayaa inta ay dadaalka ay wadaan iyo sida ay runtii dowladda u garab taagan yihiin ay cashuurta u bixinayaan laakiin isku tashi baa laynooga baahan yahay dadka ayna garabka taaganna runtii waxay nagu leeyihiin inaynu uga mahadnaqno gacanta ayna siinayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin warka intiisa badan waxaa sheegay wasiirka qorshaynta mar raba inaan ku celiyo intaasaan rabaa inaan kusoo koobo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.